dadka Soomaalida ah waxay ka mid ahaayeen dadyoogii ugu hawlanaa hawlihii adoonsiga ee ka jiri jiray qaaradda Afrika iyo dunida Carabta wixii ka horreeyay dhamaadkii qarnigii 19aad. Is-adoonsiga ayaa isugu jira laba nooc, ka ganacsiga adoonsi iyo sidoo kale ku shaqaysiga adoonsiga. Soomaalida ayaa labadaasba qayb weyn ka ahayd. Tusaale ahaan dhanka bariga iyo koonfurta waxaa ka jiray ka ganacsi adoonsi iyo ku shaqaysiga adoomada oo adoomaha ayaa loo isticmaali jiray in guryaha iyo beeraha lagula shaqaysto iyo in dibadda loo dhoofiyo si looga shaqaysto. balse dhanka waqooyiga iyo galbeedka geyiga Soomaalida kama aysan jirin isku shaqaysi adoonsi ee gudaha ah ee waxaa ka jiray oo kaliya ka ganacsiga adoonsiga ee dibadda loo dhoofiyo. dhanka waqooyiga iyo galbeedka waxay lahaayeen Soomaalidu meelo transit ah oo la sii marsiiyo dad adooma ah oo laga keenay bartamaha Itoobiya. hase yeeshee dhanka bariga iyo koonfurta waxaa dadka adoomaha ah laga keeni jiray koonfurta Itoobiya iyo wadamo kale oo ku yaala bariga Afrika sida jasiiradda Zanzibar ee maanta ka tirsan Tanzania. dhanka koonfurta waxaa laga dhoofin jiray Muqdisho, Marka iyo Barawe, halka Awdhigle, Baardheere iyo Luuq ay ahaayeen seelado la marsiiyo. dhanka waqooyiga iyo galbeedkana waxaa adoomaha laga dhoofin jiray dekada Zaylac iyo Berbera, halka Harar ay ahayd xarun ee la marsiiyo dadka adoomada ah. inkasta oo la hayo cadeymo badan in Soomaalidu ay ku lug lahayd ka ganacsiga adoonsiga ee ka socday bariga Afrika iyo wadamada Carabta ee ku xeeran geyiga Soomaalida, weli lama hayo wax cadeyn ah oo muujinaya in Soomaalidu ay qayb ka ahayd ka ganacsiga adoonsiga ee la isaga gudbayay qaaradda Atlantiga. si taasi loo xaqiijiyo waxaa loo baahan yahay in la fiiriyo arkiifyada Senegal iyo Faransiiska iyo guud ahaan adoonsiga ka socday galbeedka Afrika. ka ganacsiga adoonsiga waxa uu ahaa mid kaliya ee gobolada bariga, waqooyiga, galbeed iyo koonfurta geyiga Soomaalida la isaga gudbo, kuna xira geyiga Soomaalida deegaamo kale oo ku yaala Afrika iyo Carabta, halka gobolada waqooyiga iyo galbeedka ay sii dhoofin jireen adoomaha laga keenay Itoobiya. gobolada bariga iyo koonfurta waxa ay la soo degi jireen adoomo laga keenay Zanzibar. Emily Ruyet oo ah haweeney ka mid ah qoysaska boqortooyada Oman iyo Zanzibar waxay ku xustay buugga xusuus qorkeeda oo lagu magacaabo Memories of an Arabian ee la daabacay sanadii 1888 in adoomaha jooga Zanzibar ay ka badnaayeen kuwa jooga Oman. adoomaha la soo gelin jiray Soomaaliya ayaa isugu jiray dad cawaan ahaa oo diin aan haysan iyo sidoo kale dad lagu soo qabtay dagaalo dhaxmaray qoomiyadaha Itoobiya dhexdooda, halka ay qayb kale ay ka ahaayeen dad markoodii horeba lagu soo kala iibsaday seeladaha adoonsiga iyo bariga iyo geeska Afrika. dhanka kale koonfurta geyiga Soomaalida adoomaha loogu jecel yahay waxay ahaayeen kuwa laga keeno dhulka Oromada, halka kuwa waqooyiga iyo galbeedka adoomaha la sii safrinayo ay u badnaayeen kuwa laga keeno dhulka la yiraahdo Guuraagada. dhanka bariga waxay adoomuhu ahaayeen Sawaaxili laga soo waariday jasiiradda Zanzibar. Soomaalida ayaa mararka qaar waxa ay qabsan jirtay dad u dhashay Yurub oo maraakiib ay kula jabi jirtay xeebaha waqooyi iyo bari ee bartamaha geyiga Soomaalida. markab uu Ingiriisku leeyahay ayaa sanadii 1868 waxa uu ku jabay meel u dhow xeebta waqooyi ee Muqdisho, waxaana dadka Ingiriiska ahaa ee la socday laga xiiray madaxa, waxaana lagu kalifay inay adoomo u noqdaan qabaa'ilkii deganaa deegaanka. hase ahaatee isla sanadkaasi ayaa lagu daayay wadahadallo lala galay Ingiriiska. isaga oo xiganaya qunsulkii Ingiriiska ee fadhiya Zanzibar, John Creek, ayaa waxa Altazir uu buuggiisa lagu magacaabo The Last Slave Market oo soo baxay sanadii 2011 waxa uu ku xusay in Soomaalidu mar ay ku beegneed 1873 ay qabsadeen oo ay adeegsadeen dad u dhashay Ingiriiska. maraakiibta Yurub ayaa iyaguna dhankooda mararka qaar waxa ay qabsan jireen oo ay adoonsi ahaan u qaadan jireen dad Soomaaliyeed wixii ka horreeyay 1884. dooman ganacsi oo ay lahaayeen gumeysiga Ingiriiska ayaa dad Soomaaliyeed oo u badnaa gabdho yaryar waxa ay dhowr jeer ka afduubteen dekada Berbera, waxayna ula kaceen Ciraaq iyo meelo kale iyagoo halkaasi ka sii iibsaday. taariikhda laguma hayo gumeysiga Talyaaniga oo dad Soomaaliyeed inta ay afduubteen adoonsi ahaan ula tagay dalalkooda ama meel kale. hase yeeshee waxaa warbixinada gumeysiga Talyaaniga ee sanadihii 1901 iyo 1904 ku cadeyd in saraakiisha gumeysiga Talyaaniga ay lahaayeen adoomo u shaqeeya guryahooda bilowgii qarnigii 20aad, xitaa kadib markii ay soo saareen sharciyo ka hortagaya adoonsiga aakhirkii qarnigii 19aad. si kastaba ma jirin adoonsi ka dhex jiray dadkii Soomaalida ahaa dhexdooda ee muslimka ahaa ee wada deganaa geyiga Soomaalida, oo ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ee loo yaqaano Bantuuga ama Jareerta.
arrintani waxay ku taxalluqday diinta islaamka oo xarimaysa in dadka muslimka ah ay dhexdooda is-adoonsan karaan. sidoo kale xeerar dhaqameedkii Soomaalida ayaa waxa ay ka mamnuucayeen qofka Soomaaliga ah inuu lahaado Soomaali kale ama iibiyo ama iibsado. sidaas awgeed adoomuhu qeexitaan ahaan waxay geeyiga Soomaalida ku ahaayeen dad loo aqoonsan yahay inay yihiin ajnabi oo dadka Soomaalida ah dhexdooda ma ahayn kuwo iskula kaca falalka adoonsiga ah. dhamaadkii qarnigii 19aad in loo dhoofiyo adoomo dhanka bariga iyo koonfurta geeyiga Soomaalida ayaa dulaaleyda is-adoonsiga ee bariga Afrika ugu macaash badneed in ay adoomo u dhoofiyaan dunida Carabta iyo meelo kale. sababtu waxay ahayd waxaa soo xirmayay jidadkii badda ee la marsiin jiray dadka adoomaha ah, taasi oo salka ku haysay ku dhawaaqidii ay quwadaha gumaysiga Yurub ay ku dhawaaqeen inay qarnigii 19aad joojiyeen is-adoonsiga. markaasi ka hor ka ganacsiga adoomaha wuxuu ahaa mashruuc aad looga macaasho qaaradda Afrika. saddexdii qof ee Afrikaan ah hal ayaa wuxuu ahaa qof la adoonsado. sahmiyihii Faransiiska ee Georges Ravol ayaa sahankii uu ku marayay gobolada bariga iyo waqooyiga iyo sidoo kale koonfurta geeyiga Soomaalida waxa uu ku sheegay in dadkii ku noolaa degmooyinka Shangaani iyo Xamarweyne ay 3 dhig 2 dhig ay ahaayeen dad adoomo ah. 10 sano kadib sahmiyihii Talyaaniga oo lagu magacaabi jiray Luigi Roberto ayaa waxa uu sheegay in 3 dhig 1 dhig dadkii ku noolaa labadii degmo ee Muqdisho ay ahaayeen adoomo. tirooyinkaasi ayaa u muuqata mid ka badbadis ah. sahmiyaashii gumaysiga ayaad moodaa inay isaga dayanayaan inay buunbuuniyaan dhaawaca bulsheed ee sahli karaya inay sharciyeeyaan aasaaska xukunkii gumaysi. sahmiyaasha qaarkood waxa ay ku waramayaan in qaabkii adoonsiga looga joojiyay bariga Afrika waxa ay ku nuxnuxsadeen in joojinta adoonsiga ay qayb weyn ay ku lahaayeen dadkii adoomaha ahaa laftirkooda. si kastaba ha noqotee soo galitaanka gumaysiga ee Afrika ayaa keentay isbeddelka weyn ee ku yimid ka ganacsiga iyo ku shaqaysiga adoomaha ee qaaradda gudaheeda iyo dibaddeeda. iyaga oo meel marinaya siyaasadda liberaalka ah ayaa gumaysiyaasha reer Yurub waxa ay la yimaadeen in la mamnuuco adoonsiga nooc kasta oo yahay. saraakiisha gumaysiga ayaa isticmaalayay joojinta adoonsiga inay ku meel mariyaan siyaasadoodii beenta ahayd oo ay ku magacaabayeen xadaaradeynta Afrika. waxayna meel mariyeen sharci ka hortagaya adoonsiga kaasi oo markii dambe loo bixiyo sharciga qurumaha. sharciga ka hortaga adoonsiga ee gumaysiga marnaba ma joojin ku shaqaysigii adoonsiga, laakiin waxaa yaraaday ka ganacsiga adoomaha ee dibadda loo dhoofin jiray geeyiga Soomaalida marka loo eego. dhanka koonfurta si kastaba ha noqotee wuxuu gumaysigu joojinta adoonsiga uu ku wiiqay qabaa'ilo Soomaaliyeed oo isla isaga dagaal gumaysidiid ah kala hor yimid, kuwaasi oo adoomahoodu ay u ahaayeen kuwa uu u soo saara dhaqaalaha beeraha iyo xoolaha oo ay ku maareynayeen noloshooda. qabiiladan ayaa nooca adoonsigeedu ahaa mid aan dibadda waxba loo dhoofin ee dibadaha lagala yimaado adoomo. gumaysiga Talyaanigu wuxuu aad u buunbuuniyay in qabiilada Soomaalida ee koonfurta ee la xarbinaya xukunkooda ay si xun ula macaamileen dadka ay adoonsadaan. sidaas awgeedna wuxuu gumaysigu meesha ka saaray inaan la dhoofin karin lagana ganacsan karin dadka adoomaha ah. ilaa iyo haddana ma jiro buug cilmi ah oo si faahfaahsan uga hadlaya taariikhda adoonsiga ee guud ahaan geeyiga Soomaalida.